shirka golaha amniga qaranka ee maanta ka furmay magaalada Baydhabo oo shirgudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa goobjoog ka ah ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada kala waxa jooga shirkan wasiirada amniga heer federaal iyo heer dawlad goboleed sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa shirkan goobjoog u ah madaxweyne Farmaajo hadal kooban ka jeediyay furitaankii shirka amniga qaranka ayaa ka soo mahadcelin u jeediyay maamulka Koonfur Galbeed ee martigelinaya shirka waxa uu sheegay in kulankan uu yahay mid muhiim u ah amniga dalka shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arinsano arrimaha national security-ga ama golaha amniga qaranka uu si joogto ah uga hadlo xaaladaha amniga dalka ka jira iyo sidii la isugu diyaarin lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn kulankan maanta aan ku kulannay mowduuca ama topigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka ka jira iyo shirkankii ka horreeyey oo aan Febraayo ku kulannay Muqdisho wixii aan ka wada hadalnay qayb ahaan iyo wixii noo kala dambeeyay shirkan ayaa lagu wadaa inuu qaato saacado badan iyadoo arrinta ka doodisteedu ay aad waqti u qaadan doontaan ay tahay amniga gaar ahaan dib u dhiska ciidanka qaranka oo dawladda Soomaaliya ay u aragto inay leedahay ahmiyad gaar ah taas oo qaadan doonta wajiga hore ee shirka